Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dubai waxay u taagan tahay mid ka mid ah xudunta bariga dhexe oo haddii waagii hore ay ku tiirsanayd shidaalka, maalmahan waxaa loo arkaa inay tahay magaalada dalxiiska, ganacsiga iyo real estate-ka. Dubai-da casriga ah ee aan naqaano waxay samaysantay 50 sano ka hor, waxayna bilowday mashruuc horumarineed oo cajiib ah ilaa maantana socda. waxayna caasimad u tahay mid ka mid ah 7 imaarad oo ay ka kooban tahay isku taga Imaaraadka Carabta, waxayna u sii socotaa inay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka ugu ixtiraamka iyo xiisaha badan adduunka. Dubai waa imaarad iyo magaalo ka mid ah Imaaraadka Carabta, waxay caan ku tahay dhismaha casriga ah iyo soo jiidashada dalxiiska. magaalada Dubai waxay leedahay mid ka mid ah sheekooyinka dhaqaale ee ugu cajiibsan qarniga 21aad. Dubai waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu taajirsan 7 imaaradood ay ka kooban tahay Imaaraadka Carabta. Maanta waxaan isla fiirin doonaa 10 waxyaabood oo xiiso leh oo laga yaabo inaadan ka ogeyn mid ka mid ah magaalooyinka ugu caansan adduunka. Dubai waxay caan ku tahay dhismooyinka. waxaa ku yaala dhismaha ugu dheer adduunka oo ah Burj Khalifa. waxaa ku yaala Dubai Mall oo ah moolka ugu weyn adduunka ee wax laga iibsado. waxaa ku yaala Palm Jumeirah oo ah jasiiradda ugu weyn adduunka ee macmalka ah ama jasiirad gacan ku samays ah. 2013 qadarka dahabka ee lagu kala iibsaday Dubai wuxuu ahaa nambar aad u weyn. boqolkiiba 40 dahabka laga ganacsaday adduunka waxaa lagu kala iibsaday magaalada Dubai. waxaa ka siiya badan ku dhawaad 95% dahabka bariga iyo bartamaha Afrika wuxuu aadaa Dubai, isku taga Imaaraadka Carabta. Dubai waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu amniga badan adduunka, iyada oo heerka faldambiyeedku ku dhow yahay eber 100%. Dubai waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid ka mid ah magaalooyinka ugu amniga badan adduunka sababtoo ah sharciga oo aad u adag, dadkuna waxay leeyihiin anshax sare. canshuurta dakhliga Dubai waa eber 100%, halka wadamada sida Mareykanka uu yahay canshuurta ugu yar 10%, Canada 15%. tani waa mid ka mid ah mudnaanta ugu fiican haddii aad rabto inaad noqoto qof taajir ah oo ku nool Dubai, taasoo ka dhigaysa Dubai mid ka mid ah magaalooyinka ugu habboon adduunka in laga bilaabo ganacsi. magaalada Dubai waxay leedahay heerka ugu sareeya ee koritaanka tirada dadka. sanadii 1975 dadka ku dhaqan Dubai waxay ahaayeen qiyaastii 166,000 oo qof, maantana waxay gaarayaan 3.3 milyan. dadka Dubai waxay aad u jecel yihiin dahabka. Dubai waxaa ku yaala ATM-yada bixiya baararka dahabka, ama booqo suuqa caanka ah ee Dubai Gold Souk oo ah suuq dhaqameed caanka ah magaalada Dubai. qiyaastii 25% dahabka adduunka ayaa soo mara magaalada Dubai. qiyaastii 85% dadka degan magaalada Dubai waa dad ka imaaday dibadda. waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 15% dadka reer Dubai in ay yihiin Imaaraati, halka 85% kale ay yihiin dad ka soo hijrooday wadamo kale. Dubai-na waxay u imaadeen shaqo. inta badan shaqaalihii dhisay boqolaalka dabaqyada dhaadheer ee Dubai waxay ka imaadeen oo ay ka soo hijroodeen wadamada sida Hindiya, Pakistan iyo Bangladesh. kala sareynta heerarka nolosha ee Dubai. in badan oo ka mid ah shaqaalaha soo galootiga ah ayaa ku nool kuna shaqeeya xaalad aad u adag oo cabsi badan, halka dadka Imaaraatiga ay haystaan waxbarasho iyo kirada guriga. Dubai waxaa la aasaasay qarniga 18aad ayadoo ah tuulo kalluumaysi oo yar. magaaladu waxay si xawli ah u sii kortay xoraantii qarnigii 21aad, waxayna noqotay magaalo weyn oo caalami ah iyadoo diiradda saartay dalxiiska, martigelinta iyo ganacsiga. Dubai ma ahan caasimadda isku taga Imaaraadka Carabta. Abu Dhabi ayaa ah caasimadda Imaaraadka Carabta ama isku taga Imaaraadka Carabta. Dubai waa magaalada ugu weyn ee isku taga Imaaraadka Carabta.
marba haddii Dubai laga sheekeynayo waxaa laga tegi karin gawaarida ciidamada Dubai. xaqiiq xiiso leh oo ku saabsan Dubai ayaa ah in ciidamada booliiska Dubai ay adeegsadaan gawaari qaali ah si ay u soo jiitaan dalxiisayaasha una muujiyaan sida ay casri u tahay magaalada. gawaarida sida Lamborghini, Ferrari iyo Bugatti waa gawaari kan ugu yar jooga $300,000 kuwa kalena ay joogaan $500,000 $1,000,000 iyo wax ka badan. marba haddii ciidanka Dubai uu wato gawaaridan qaaliga ah maxay wadan karaan dadka maalqabeenka ah ee ku nool magaalada Dubai.